Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ummadda islaamka oo dhan waa salaamayaa. Weliba inta bahda baraha bulshada daawata ama wax ka barataba aqoonta ula tutorialka inay daawadaan. Marka YouTube channelkayga casharaan dhigi jiray, casharo aan dhigay laakiin waan ka xumahay in badan ma soo gelin, mana soo dhigin sababtoo waxaa ku iskareeyay laptopkayga timaada boodhkiisii magaaladan ka waayay. Waa laptopyadan iska Asus-ka loo yaqaano, motherboardka iga gubtay marka magaalada Hargeysana motherboard kuma yaalo. Marka waxay maanta igu dhalato shiri war haddii aad u baahato eray aan qof isleeyahay gaadhsii mobilkaaga ka gaadhsiin kartaa. Imika casri baa la iska marayaa. Marka maanta waxay igu dhalato inaan ka gudbiyo casharkii mobilkayga notebook aan ku diyaariyay. Marka intii taqaano way taqaanaa, intaan aqoon baan wax u gudbinayaa. Waxa lagu yiri hal kelmadna ha noqotee walaalka u gudbi ama gaadhsii, isna waxa aanad garanayn ha ku soo gaadhsiiyo. Marka dadka wax garanaya English garanaya waxaan kula talin lahaa war walaalkiina aan aqoonta u lahayn luqadda ama wixii kale aad ku dhaanto diinba ha ahaato ila diinba ugu muhiimsan waxa la soo gaadhsiiyay walaalka u gudbi. waxaad arkaysaa YouTube-ka dad ku jiro success balaayo wax xun sida u soo xitaa rag waxaan arkay anigu YouTube-kan ka daawaday galmada iyo raaxada iyo waxa ka sheekeynaya. War waxaasi diintu way dabooshay oo de raaxada oo la asturo si dadban baa looga hadlaa, laakiin si qaawan loogama sheekeeyo. waa wax uu alla karaameeyay oo la iskugu talagalay rag iyo dumar, laakiin falaaqaynteedu ma qurux badnayna dadka ka horta tiraado. Marka anigu waxaan soo gudbinayaa casharkii 12aad ee buugga Practice and Progress. Casharo horena waan soo geliyay, kuwa dambana insha Allah waan isleeyahay geli, sababtoo ah haddaan eray walaalkay ku dhaamo kaan aqooni u arko maanta ka faa'iideysto. Kulley wixii soo aan gartay aan garanayn gudbiyay dambi iguma fadhiyay. Waayo xitaa kelmadna ha noqotee wixii aad haysay walaalka ku dhaanto u gudbi. Anu guda gal casharka. Goodbye, maca salaamo and good luck iyo nasiib wanaagsan. Our neighbor Captain Charles Allison, our neighbor jaarkayga Captain Charles Allison ninka la yiraahdo Wilson wuxuu ka soo shiraacan doonaa from Baltimore. Dekeda Baltimore loo yaqaan. Baltimore imika waxay tahay waa capital letter ka bilaabmaysa waa magac. Tomorrow we anagu shall meet him isagoo la kulmi doona at the airport. Dekedaan kula kulmi doona early subax in the morning. Early in the morning subaxa hore. Early waa hore, morning waa subax. He will be in his small boat. wuxuu ahaan doona in gudaha his small boat doontiisa yar topsail loo yaqaan. Topsail doonta la yiraahdo is famous waa caan. A little boat waa doon yar oo caana. Famous memory it has sailed waxa ay jartay across ama ay gudubtay ama waxay safartay across ay jartay the Atlantic many times. waqtiyo fara badan bay badweynta Atlantic jartay. Captain Allison ninka la yiraahdo will set out wuxuu amba bixi doona at 8 o'clock 8 buura. soo darteed we shall have plenty time. waqti nagu filan ayaan haysanaa. We anagu shall see him isaga doonta ayaan ku arki doonaa. His boat doontiisa ayaan ku arki doonaa. And then dabadeedna we anagu shall say goodbye waxaan oran doonaa maca salaamo to him isagaan oran doonaa. Isagu will be away wuxuu maqnaan doonaa for 2 months laba bilood. We anagu proud of him isagaan aad ayaan ugu faanaa. Very proud of him halka fari baan ka tagay. He isagu will take part wuxuu ka qayb qaadan doonaa in important race tartan muhiim across kaasoo lagu jaray Atlantic badweynta Atlantic. Comparison prices fahan gaaban composition iyo curin. halka waxaan ka tagay answer ka jawaab this sentence kan not more than waxaan ka badnay 45 words 45 eray. inta waxaan uga tagayaa su'aalahan marka weydiinta dadkaan uga tagayaa sababtoo ah qofka bilaadan markaad ereygan passage-kan uu xiftiyo wax ka fahmo uu ka jawaabi karaa su'aalahan. marka waxaan uga tagay qofka sababtoo ah qofku intuu maanta saa uu daawado bas
markuu eraya ka dhex fahmo erayada ka dhex qaato iskaga tegaya laakiin inuu wax curiyo weeyaan oo jawaabahan uu keeno saas darteed baan anigu uga tegaya qofka inuu isku dayo inuu ka jawaabi karo waayo waanta waxaad fahanto eed ka jawaab bixiso oo wax maskaxdaada galay oo kama baxaayo humkuma shall we meet aanu la kulmi doonaa at the Bartismon Harbour dekada Bartismon loo yaqaano kumaan kula kulmi doonaa early tomorrow morning beri subaxa hore where xagee will he be uu ahaan doonaa isagu 3 at what time waqtigeeba will he isagu leave u tagi doonaa 4 shall we say miyaan odhan doonaa goodbye to him isaga maca salaama maan odhan doonaa or mise shall we travel with him isaga waan la sarfi doonaa 5 what will he take muxuu isagu ka take part ka qayb qaadan doonaa muxuu ka qayb qaadan doonaa adiga laga rabaa key structure qaab dhismeedka furayaasha ama ayaan la iraahdaa key structure oo qaab dhismeed I shall see you tomorrow on ku arki doonaa berri toole this sentence-yadan talas waxay noo sheegay about the future mustaqbalka read akhri dam iyo carefully si taxadir leh note ogsoonow that the word erayada shall erayga la yidhaahdaa word erayga shall la yidhaahdaa is often mararka qaar use with waxaa lala isticmaalaa I and we by kale attention ka taxadir the words erayada in italics ee farta shiifta ku jira I shall see you tomorrow berri ayaan ku arki doonaa I shall see you waxaan ku arki doonaa at 3 o'clock markay 3 buuraa tahay we anagu shall travel waxaan ku safri doonaa by air hawada we anagu shall be waxaan ahaan doonaa at the airport dekada garoonka tomorrow morning beri subaxa airport waa garoonka diyaarada charge ninka will be here halkan buu ahaan doonaa this evening kan he isagu will coming wuxuu ka qayb qaadan he isagu will coming uu iman doonaa by train ayuu ku iman doonaa Alisa will meet Alisa gabadha la yiraahdaa will meet him isaga way la kulmi doontaa at the station boostechada ama meesha basaska laga raaco taanka inta badhe shiyadu will there waxay ahaan doontaa halka at 5 o'clock shanta buura the train will arrive wuxuu imaan doonaa at 4:55 4:45 it will be here wuxuu ahaan doonaa halka sun dhaqso ayuu ahaan doonaa you adigu the train will arrive wuxuu imaan doonaa at the 4:45 it qofkii baa loo soo qaatay will be here waa inuu halka ahaadaa sun dhaqso waa inuu halka ahaadaa you adigu will miss waa la waayi doontaa ama waad seegi doontaa the train-ka you will be late haddii aad raagto you adigu will be haddii aad ahaato late mid raaga dee iyagu will come way imaan doonaa here halkan the fruit agtooday ku imaan doonaan dee iyagu way lugayn doonaan from the station xarunta ama boostechada ama istaanka exercise ka jawaab underline hoosta ka xariiq all the verbs ficilada in the passage qormada ku jira which kuwaasoo talaas inoo sheega what happened waxa dhacay ama imka dhacayaba waxa dhaca dhamay waa si sax ku tahay what happened waxa dhacay b gives the corrective form qaabka saxan of the verbs ficilada in bracketada ku jira do not refer as samaynta raaca to the passage qormada until ilaa you finish adigu aad dhamaysatay exercise-ka our neighbor Captain Charles Allison will ba halka ka maqan will sell from Bartismon tomorrow we anagu meet waan la kulmi doonaa him isaga the airport early in the morning subax halkaana we shall ba ka maqan he isagu will be in his small boat Topsail is a famous little boat it has sailed across the Atlantic many times Captain Allison will set out at the 8 o'clock so we shall have plenty time halkaana shall ungali plenty time we shall see his boat and then we anagu shall say goodbye maca salaamaan odhan doonaa to him isagu will be away wuxuu maqlaan doonaa for 2 months laba bilood we anagu are very proud of him isaga aad baan ugu faanaa he isagu will take part wuxuu ka qayb qaadan doonaa halkaana will gali in important race tartan muhiim across kaasoo lagu jaray Atlantic between Atlantic see in the paragraph qormada below hoose the verbs ficilada in italic
ku jira farta jijifta italics farta jijifta talas waxay noo sheegay what happened waxa dhacay right qor this passage qormadan again mar kale change bedel the verbs ficilada in italics farta jijifta ku jira kuwaasoo soo start saadirteed that kuwaasoo day iyagu talas noo sheegay what will happen waxa dhici doona I went one aaday to the theater with my friends saaxiibkay baan aaday raagnin kala idhaa so waxaan arkaa the first markii hore performance bandhig of play riwaayadeed college kaasoo loogu yeedho the end of the road dhammaadkii wadada after kabacdi the play riwaayada the producer soo saarihii gave wuxuuna siiyey short speech khudbad gaaban he spoke isagu wuxuu ka hadlayay awliyaansi dhageystayaasha about the play ee ku saabsan macnihii riwaayadda the play riwaayadda was very successful mid aada u guula bay ahayd and I think waxaan umaleeyaa great many people dad aada u waaweyn oo fara badani enjoyed inay ku raaxaystaan it riwaayadda very much si aada iyo aada but dig in shal or ama wiil iyo shal dhig ba halkan la guuri the plane diyaaradii maxay qaadanaysaa wiil bay qaadanaysaa arrive waxay imaan doontaa in 2 hours time 2 saacadood bay imaan doontaa waqtiga ay maxay qaadaa shall wait waan sugi doonaa here halkan until ilaa he comes u imaado win halkan taala maxay qaadaa shall we see you again aynu arki doonaa aanu ku arki doonaa I shall send waan kuu soo diri doonaa you adiga telegram telefoonada macnihii markabada from the nasi meesha la idhaha baan ka soo diri doonaa my secretary gacan yarahaygu will write you waxay kuu soo qori doontaa to your shorty si gaaban bay kuugu soo qori doontaa shortly si gaaban special difficulty waxyaabaha khaaska ee adag read akhri sentence kan each sentence kasta contains wax ka kooban verb to be ficilka b this verb ficilkan has different meaning ujeedooyin kala duwan buu ku leeyahay in each sentence kasta he isagu will be away wuxuu maqnaan doonaa for 2 months 2 bilood ayuu maqnaan doonaa special difficulty 10-11 man kusoo aragtay baa lagu leeyahay waayahay I'm going out dibadda ayaan aadaya now hadda I shall be back waxaan dib u soo noqon doonaa the 6 o'clock 6 buura if anyone haddii qof telephone uu soo diro tal dem iyagana u sheego I shall be out dibadda ayaan ahaan doonaa all morning subax oo dhan I went one aaday to the third's house guriga third baan aaday and I asked waxaan u weydiiyey to see him inaan isaga arko ayaan weydiiyey but he wasn't in maba uusan jooginba gudaha why Soma don't you forget about it Soma taa u ilowday it is all over macni waxa la maqnata it is all over waa ay dhamaatay way it has finished way dhamaatay weeyaan what's on maxaa ka daarnaa on the local cinemaha gudihiisa this week kan shiyadu is very ill aad ayay u jirantay shiyadu kaana start work yet shaqada weli ma aysan bilaabi karinba shiyadu is not up maba istaagi karto ama kor uma kici karto to the it shaqada maba kici kartaba shiyadu is not capable of it tamaba waa awoodi karto ama awood maba lahaba now hadda look at egg the verbs ficilka sad ficilka la yidhaha egg in this sentence kan Captain Alison will set out wuxuu kasoo shiraacan doonaa 8 o'clock 8 buura isagu will start his journey macnihii safarkiisa ayuu bilaabi doonaa wey haye Tom ninka la yidhaha set off wuxuu ka amba bixi doonaa ama safarkiisa ka bilaaban doonaa in the morning subax ayuu bilaaban doonaa we anagu start our journey safarka ayaanu bilaabi doonaa Johnny set up wuxuu raalli noqda wuxuu John dejiyey new world record cusub oo adduunka cusub of for the 400 meters 400 oo mitir ayuu dejiyey exercise ka jawaab replies dib ugu celi the words ereyga in italics ee farta jifta ku jira by the correct form qaabka saxda of be or sat intan waxaan uga tagayaa iyadana qofka ayaan uga tagayaa macnihii markuu fahmo wixii dhan aan soo akhrinay si uu uga jawaabi karo he isagu has not yet weli ma uusan return soo noqon he isagu will return uu soo noqon doonaa 10 minutes gudahood ee new play riwaayad cusub ciyaar cusub is being perform ayaa la qabtay of the global theater adduunka
ama theatre global theatre loo yaqaano win markii the concert riwaayad andi dhamaatay anagu went home guriga ayaan aadnay they iyagu will leave waa ay tegi doonaan very early tomorrow morning aad ayay subaxa hore u tegi doonaan iyo adigu kana take ma qaadan kartid the exam imtixaanka yet wali you are not capable of it tamaba awood bow ma lihidba he isagu will be absent waa uu maqnaan doonaa from home gurigiisa ayuu ka maqnaan doonaa for 2 months laba bilood she iyadu so swam way dabaalatay across waxayna jirtay the English channel macnihii biyo mareenka ama kanaalka English Ingiriiska ku yaala ayaa la sheegayaa aan created waxayna abuurtay new world record cusub oo adduunka aad iyo aad baan u salaamaya ummadda islaamka de kolley cidda casharkan garanaysa ama wax ka garan karta ama akhrin karta English garanaysa oo iyagu mahadsan yihiin inta aanan garanayn laakiin waxaan leeyahay be careful ka taxadira wixii aad maanta si fiican u eegto ama aad wax ka dhex fahantaa beri ka maalin buu ku anfacaa marka waad mahadsantihiin insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaan qaar kalena soo kordhiyo aniga oo inkastoo aaladii laptopkii iga xun tahay balse mobilkan kusoo gudbin karaa kolley waxaad haysataaba wixii kaa maqan uu ku dhaamaa ilaahay waa mahad leh waan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh